Assalaamu calaykum. Muuqaalka maanta wuxuu ku saabsan yahay taariikh kooban oo ku saabsan mid ka mid ah shakhsiyaadkii ugu cajiibsanaa uguna waxtarka badnaa caalamul islaami sanadihii la soo dhaafay. ساعة نقضيها مع الطبيب الفيلسوف مصطفى محمود وحديث الدفاع. أقدم حاجة أفتكرها يمكن ده كان مصطفى كمال محمود حسين آل محفوظ kuna magac dheeraa Dr. Mustafa Maxmuud wuxuu ahaa qoraal suugaanyahan filosof iyo Dr. Masriya. Mustafa Maxmuud wuxuu ku dhashay meesha la yiraahdo Shibin Elkom ee ku taala Masar wuxuuna ka dhashay reer xaaladooda iska dhexdhexaad ahayd aabihiina wuxuu ahaa nin shaqaale ah. Mustafa Maxmuud yaraantiisii wuxuu ahaa mid marar badan xanuunsan jiray arrinkaas oo sabab u noqday inuu sidii ciyaalkii la fac ahaa oo ciyaari kari waayo. Dr. Mustafa ilaa ciyaalnimadiisii wuxuu ahaa mid aad u jecel aqoonta waxaanu lahaa laab yar isaga oo yarna wuxuu bilaabay inuu sameeyo biifbaaf kiimikooyin uu isku daray uu ka sameeyay sidoo cayaanka iskaga buufiyo. wuxuuna ku caanahaa barnaamijkiisii caanka ahaa ee al-cilm wal-iimaan ee uu 400 xalqadood ku soo gudbiyay kaasoo cid kastoo daawatay barnaamijkiisan uu fursad dahabiya ugu siiyay sidii uu cilmiga ugu xidhiidhin lahaa jidkii ama wadadii loogu mar lahaa ogaanshaha iyo jiritaanka Alle subxaanahu wa tacaala. يا أهلا بيكم. العلم والإيمان يعتبر أهم برنامج يمكن ظهر خلال 50 سنة اللي فاتوا. برنامج العلم والإيمان حين يذكر يلصق به اسم مصطفى محمود، وإذا ذكر مصطفى محمود فقبل أن يتذكر أي منا كتابا له أو مقالا أو مسرحية أو قصة أو مداخلة يتذكر برنامج العلم والإيمان. برنامج العلم والإيمان كان فعلا علما وإيمانا، يعني من لم يكتسب منه إيمانا فقد اكتسب علما، وفي نفس الوقت أغلب الظن أنه يكتسب العلم والإيمان. wuxuu bartay medicine-ka wuxuuna ku sii takhasusay xanuunada maskaxda iyo neerfaha. xilligaas oo uu waqti badan ku qaadan jiray qolalka meydka la dhex dhigo wuxuu u fiirsan jiray jidhka bini'aadamka arrinkaas oo saameyn weyn ku yeeshay afkaartiisa gaar ahaan wixii la xidhiidha geerida iyo ka bixitaanka ruuxdu ay ka baxayso jidhka. muddadii uu ku jiray barashada medicine-ka wuxuu isku arkay hibadii uu u lahaa qoraalka iyo sugaanta. kadib markii uu hibadiisan ogaadayna taasoo uu muddo yar gudaheed khabiir ku noqday wuxuu bilaabay inuu si joogto ah wax ku qoro jaraa'idada xilligaas oo ahayd sanadkiisii ugu dambeeyay ee jaamacadda. sidoo kale wuxuu bilaabay inuu wax ku qoro wargeysyada al-taxriir iyo Raisal Yusuf. wuxuu guursaday sanadii 1961 guurkaas oo furniin ku dhamaaday 1963 kadib markii uu 2 wiil dhalay. mar kale ayuu haddana guur kale galay 1983 guurkaas oo isaguna 4 sano kadib furniin ku dhamaaday. Dr. Mustafa Maxmuud wuxuu socdaal dheer la maray naftiisa isaga oo baadhay xaqiiqada isla markaana adeegsanaya cilmiga sayniska aqoonta iyo diimaha kaas oo uu ku bilaabay suufiyada Hindida Buddhismka iyo qaar kale kuna soo gabagabeeyay diinta Masiixiyiinta Yahuudda iyo diinta Islaamka isagoo ugu dambeyntiina isagii naftiisuba ay Quraanka Kariimka deganaansho ka heleen. mar uu socdaalkiisan ka hadlayay wuxuu yidhi wuxuu arrinku u baahday 30 sano oo aan kutub iyo buuga ku dhex qoosay iyo kumanaan habeen ah oo aan la fikrayay lana kaliyoobin naftayda iyo rogrogida fikirka si aan uga gudbo wadooyinka qodxaanta leh ee u dhaxeeya Ilaahay iyo bani aadamka ilaa iyo maanta oo aan wax qorayo anoo ku sugan jidka yaqiinta. 30 sano oo uu ku sugnaa shaki oo uu marna wax sugay marna wixii uu sugay ka hadhayay ama diiday wuxuu aad wax uga akhriyi jiray isla markaana wax ka baadhayay diimo kala duwan si uu u ogaado xaqiiqada. aakhirkiina Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu ku soo hanuuniyay diinta saxda ee Islaamka.
muddadaas ayaana loo aaneeyay inay ka dhigtay mufakir diin iyo akhlaaq ku suntan. Mustafa Maxamuud muu ahayn qofkii ugu horreeyay ee marxaladan oo kale soo mara, oo waxa kaga horreeyay culimo waaweyn sida Abu Hamid al-Ghazali. Dr. Mustafa Maxamuud marxaladaas iyo waqtigii adkaa ee uu ku sugnaa, duruustii iyo casharadii faraha badnaa ee uu ka bartay iyo hibadii uu lahaa qoraalka iyo suugaanta waxay soo saareen buugaag aad u qiimo badan oo ay ugu horeeyaan Xiwaari maca Sadiiqi al-Mulxid iyo Rixlati min ash-Shak ila al-Iimaan, kuwaas oo uu qoray qaab aad u farshaxamaysan oo ay ku ladhan yihiin cabqarnimo iyo qancin aad u sareeya. Dr. Mustafa Maxamuud wuxuu sidoo kale qoray marka laga yimaado labadan buug 87 buug oo kale, waxaana wax ka qoray majaalo kala duwan sida cilmiga, diinta, falsafada, siyaasadda, arrimaha bulshada, riwaayadaha iyo sheekooyinka gaagaaban. Dr. wuxuu ku guuleystay jaa-isado badan sida daraasado Mareykan sheegayaana waxa lagu tiriyaa maskaxii ugu khatarsanaa qarnigii 20aad. sidoo kale marka laga yimaado caalamka fikirka falsafada iyo suugaanta, Dr. wuxuu dhisay masaajid waxaana ugu magac daray magacii aabihii, wuxuuna aasaasay isbitaallo ugu talagalay dadka tabaalaysan. sidoo kale wuxuu dhisay maktabad iyo matxaf geologiya iyo mid falaki ahba. إيمان مصطفى محمود قطعا قاده بشكل طبيعي إلى أن يقدم التزاما أخلاقيا مع المجتمع بعد أن قدم أطروحته الفكرية. ولا إذاعة، لكن إحنا كلنا كنا فرحانين. في مكتبة فيها كتب عظيمة جدا، وكان المتحف الجيولوجي كان فيه شوية لسه يعني كان بادي، بس في حاجات بسيطة. بدأ نجيب شباب من كلية العلوم. marka laga yimaado wax qabadkiisa aadka u tirada badan, Dr. sida qof kasto bini aadam ma ahayn qof dhameystiran oo isba wax lahaa afkaar guracan. haddana iyadoo ay sidaa tahay, khaladaadka yar awgeed marnaba la iska indhatiri maayo wax qabadkiisii saameynta dadka badan ku reebay. waxaana fiican in qof kasta intiisa fiican laga qaato, intiisa xunna la isaga tago. Dr. Mustafa Maxamuud Ilaahay ha u naxariistay wuxuu dhintay 31 Oktoobar 2009 kadib dhowr bilood oo uu bukay. 88 jir ka tagay cilmi badan oo laga dheefsaday kutubtiisa iyo barnaamijkiisa caanka ahaa ee al-cilm wal iimaan, kaasoo dad badan ku dhiirigeliyay caalamka aqoonta iyo baadhista dariiqa ah. الحياة بالنسبة للواحد فينا أشبه بوليمة فاخرة، لكن الإنسان مدرك تماما إن هذا الأكل ده فيه سم، بمعنى إن كل اللي هياكله هيجي يوم يموتوا.